كوي سجاشن اعتكافكم محوية اعتكافكم محوية اعتكاف وحلا يرهدا لقولنا قادو مسجد مال عباده مساجد بين نغنيسا adoo ku xabisaya liwajhi illaahi inaad meeshaas ku cibaadaysatid oo aadan ka bixin ictikaafka na waxa uu badanaaba la xiriiraa ramadaanka tobanka dambe oo ramadaanka nebigu waa ictikaafi jiray masaajidku geli jiray tobankaas ilaa ciida laga gaaro waa kaa marka ictikaafku waa sidaas 29 haddii aad dad dembi ka gashay ama wax ka dhacday ama dishay ama xamatay ama dhib u geysatay cumrada iyo xajka ma lagu cafiyaa haddii qof aad dhib u geysatay dil dhac muxuu ahaa cay xamasho waxaas aad ka gashay qofka muslimka cumrada iyo xajku ma lagu cafiyaa maya laguma cafiyo cumrana kaa cafin mayso xajna kaa goyn maayo wixii dad aad ka gashay laakiin ilaahay waa kaa taxamuli karaa hadduu rabo hadduu raalli kaa noqdo wuu kaa taxamuli karaa isagoo addoonkaas siinaya wax bedel ah 93 intee mar ayuu nabigeenu cumraystay inteesa mar ayuu xajiyey nabigeenu hal mar kaliyuu xajiyey حجة الوداع بالي هذا لكن أفر مر بو عمريست أفر مر أيو عمريستين نبينا عليه الصلاة والسلام أفر يسقاشن شيخ وحيالها الله ربه إن هيسته وواجب كاقدي كوكو نغنى إن قبتت ساد وحجيسيد سياد وحجيسيد مو عمريستيد وحيالها الله ربه محاكم إذا culimadu kutubahoodii waxay ku qoreen azaadu inaad sahaydii haysatid weliba reerkaa ka tegaysidna wuxuu intaa maqan tahay wax ku filan aad uga tagtid adiguna aad sahay haysatid aad ku tagtid xajka ku soo noqotid arraaxila wixii aad fuuli lahayd oo macnaha diyaarad ama tareen ama gaari noqdo iyo dariiqo aamina dariiqo hadduusan aamin ahayn waajib kugu noqon maayo casrigan hadda cusubna waxaa laga yaabaa viisihii xajku inuu soo galo sababtoo viisa xaj haddaadan haysan gudbiba maysid marka waxay gelaysaa waxyaalaha laga rabo si aad u xajisid haddiise si uun aad u dhaafi kartid viisadaas oo aad xagga joogtid ama meel u dhow xaramka oo aad ku dhuuman kartid oo arkaantii kale aad la timaadid xajkaagu waa saxiix 95 masaajidka madiina in la ziyaarto xajka iyo cumrada miyaa ka mid tahay xajka iyo cumrada ma waxaa ka mid ah in masaajidka madiina oo nabigeena la ziyaarto calayhi salaatu wassalaam maya in masaajidka nabiga la ziyaarto waa sunna laakiin ma aha wax ka mid ah arkaanta iyo waajibaadka iyo xataa sunanta xajka kama mid aha wax la ziyaaranayana waa masaajidka maaha qabriga nabiga calayhi salaatu wassalaam nabigii baan aadaynaa bay ku leeyihin maya waa masaajidka wax la ziyaaran lianna xadiiska nabiga wuxuu oranayaa laa tushaddu arixaalu ilaa ilaa 3 masaajida 3 masjid keliya ayaa loo raran karaa oo loo safri karaa cibaado ahaan masjid alxaraam wa masjidi hada walmasjid oo masjid alaqsa ama bayt almaqdis 3daas qubuur sideedaba looma raran karo gawaari iyo awr iyo diyaarado iyo wax xasaas diyaaradii hebel bay ku leeyihiin looma safri karo ziyaaro 96 cilmiga faraa'idka la yiraahdo ama dhaxalka maxaad ka taqaan cilmiga faraa'idka la yiraahdo maxaad ka taqaanaa ama dhaxalka علمي فرائد كلا يراهدو نصف العلم بلا يراهدا نصف العلم محايا لي لبا شيء بوئيه تذكر لن علمي كانوا وصوة مريا هذي مال كتجان قف والبوالا نحليا تنكله علمي لبا لو قيبيا من نرشة يمد لمشذا
marka midkii nolosha ma ahay waa kii dhimashada marka waa nusul cilm dhaxalka marka ma gelayno laana waa cilmi aad u ballaaran laakiin intaasan ku soo koobaynaa waxaana ka mid ah waxyaalaha ra'iisiga ah lidakari mithlu xadi lunhayayn qofka dakarka ah wuxuu leeyahay ama ragga ah qofta dumarka intay leedahay laba jibaarkeed waana cadaala ilaahay subxaanahu wa tacaala mana aha wax in laga keeno hadal oo laga murmo laa yus'alu camaa yafcal wa hum yus'aluun ilaahay wuxuu rabo lahu lkhalqu waalamr abuuritaanka iyo amarka yaa leh in ilxukmu ilaa lilaah qof muslimada haddaad tahay ilaahay iyo muslim inaa u hoggaansataa la rabaa mar walbana ma aha lidakari mithlu xadi lunhayayn ee xaalaad waxa jira hooyada iyo aabbuha ay wada qaadanayaan sudus ama 6 meelood meel 97 jihaad muxuu yahay inteesa u qaybsamaa jihaad muxuu yahay inteesa u qaybsamaa jihaad waxaa la yidhaahdaa dagaal loo gelayo diinta ilaahay in kor loo dhigo maaha dhul in la qabsado in dowlado kale laga xoraysto dhul iyo waxaasoo dhan jihaad ma aha waxaa jihaada in diinta ilaahay la kor yeelayo saas dagaalkaas lagu galo kaasaa jihaad la yidhaahdaa waana waajib ilaa yowma alqiyaama muslimiintu ama ha ka gaabiyaan ama yayn ka gaabinin ama tabartooda ha u diido waa waajib buu ku yahay muslimiinta labuuna u qaybsamaa jihaadu dafc iyo jihaadu طalab waxaa loo qaybiyaa jihaad oo adiga cadowgii aad dalbaysidood raadinaysidood weerar ku qaadaysid litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa si kelmaddii ilaahay ay kor u noqoto iyo jihaadu dafci mid la yidhaahdo waa lagu soo weeraray dhulkaagii ahalkaagii waddankaagii iyo meeshaad deganayd iyo baa laga rabaa in lagaa qaado waad iska celinaysaa kaasna waa labadaba waa waajib gaalada nimanka la yihahdo mustashriqiinta ayaa muslimiinta qaarkood waxay ka dhadhacsiiyeen islaamku waa jihaadu dafca keliye dalab ma laha markaasaa qaar badan u riyaaqeen oo culimo ah oo jihaadu dafca keliya waa islaamku leeyihiin waxba kama jiraan labadaba waa laga rabaa 8 beeca iyo ribadu maxay kala yihiin inteesa baab ayay ribadu leedahay beeca iyo ribada maxay kala yihiin inteesa baab ayay ribadu leedahay beeca waxaa la yihahdaa wax kala gadasho lacag baa qof wax uga gadanaysaa waa ka qaadanaysaa alaab baad isdhaafsanaysaan muxuu ahaa waa inta la ogol yahay waa beec wuxuuna macruuf ku yahay khasaaro iyo faa'iido labadaba waa leeyahay beeco khasaaro iyo faa'iido labadaba waa leeyahay shuruudna waa leeyahay waa inaa wixii soo gacantaada mulkigaaga galaa waa inaan wax bad ku jira ahayn waa waxyaalo noocaas oo kale beeco marka waa xalaal ribadu maxay tahay riba waxay dulsaar wax dul saaran yihiin oo matalan qof baad waxaa deymisay $1,000 waxaa tiri ya akhay sanadka bacdi $1,005 ii keen shantaasu waa ribo intaa keliya maahee ribadu waxay leedahay 70 baab nebigu calayhi salaatu wasalaam noo sheegay baabka ugu yarna waxaa weye inuu ninku hooyadiis ugu tago kacbada waa baabka ugu yar waaye halkaa waxaa garanaysaa ribada kuwa guryaha ku dhisanaya kuwa tijaarada gashanaya kuwa ma garanaysa in ay baab dhibaato weyn inay ku jiraan ha fududaysanin ribadu waa wax baas oo ilaahay naga reebay ilaahayna wuxuu ballan qaaday inuu la dagaalamo qofkii ribo ku shaqaysta ama ribo qaata marka ribadu waxay macruuf ku tahay khasaaro ma ogola iyadu lacag baan ku siinayaa anigu waxaan rabaa mar walba ziyaadaan rabaa 9 bangiyada caalamka badidood ma ribo ayay ku shaqeeyaan bangiyaalka caalamka ka jira badidood ma ribay ku shaqeeyaan haa bangiyaalka badidood julligooda waxay ku shaqeeyaan ribo maxaa yeelay gaala aliftay bangiyadan weliba yahuud baa ka dambaysa xataa kuwa muslimka sheeganaya shaa'ibo oo ribo ah ay soo geli kartaa maxaa yeelay waxay qallidayaan oy ku dayanayaan bangiyaalka ay la tartamayaan ribo ku shaqaynaya
marka iska hubiya bangiga aad wax ka qaadanaysid ama wax dhiganaysid hubina inuu shariicada islaamka u hogaansamayo. 100 waxa loo yaqaan kaararka deynta ama credit cards, kaararka viisaha muxuu ahaa oo ka mid yahay ribo ma xambaarsan yihiin. kaararka credit cards ka yiraahdo ama kaararka deynka oo lagu gato wax ribo ma xambaarsan yihiin. su'aashaasna waxaan ka rabaa in ay iga soo jawaabtid commentiga ama tacliiqa. inta ayaan ku soo gabaynaya wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.